Weli ma isweydiisay nolosha adag maxay ku baraysaa? Nolosha adag waa macallin aan hadlin, laakiin casharro waaweyn bixiya. Mararka qaar qofku wuxuu isweydiiyaa, maxaan dhibkan oo dhan u marayaa? Maxay noloshu igu adkaatay? Laakiin waxaa jira xaqiiqo badan oo aysan fahmin. Nolosha adag waxay qofka bartaa waxyaabo aynu raaxadu bari karin. Qofka aan weligiis dhib arag ma garanayo qiimaha farxadda. Qofka aan murugada soo marinna ma fahmayo macnaha samirka. Nolosha adag waxay ku bartaa inaad xoogaysato. Waxay kaa dhigtaa qof aan si fudud u jabin. Waxay ku bartaa inaad istaagto xitaa marka aysan cidina kula joogin. Mararka qaar dadku kuu dhow way kaa tegayaan. Qaar waxay ku garab istaagayaan oo keliya marka aad fiican tahay. Laakiin marka dhibku yimaado, waxaad ogaanaysaa qofka dhab ahaan kuu jecel. Taasi waa cashar weyn. Nolosha adag waxay ku bartaa dadka dhabta ah. Waxay kaloo ku bartaa inaad naftaada aaminto. Marka albaabo badan kaa xirmaan, marka lagaa quusto, marka lagu yiraahdo ma awoodid, waxaad baranaysaa inaad naftaada ku tiirsanaato. Waxaa laga yaabaa inaad habeenno badan soo jeeday. Waxaa laga yaabaa inaad aamustay adigoo murugaysan. Waxaa laga yaabaa inaad ilinta qarisay si aysan dadku u arkin xanuunkaaga. Laakiin dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxay kuu dhisayaan qof cusub, qof adag, qof fahmay nolosha. Nolosha adag waxay sidoo kale ku bartaa samirka. Waxay ku tusaysaa in wax walba aysan hal mar ku hagaagayn. Mararka qaar waxaad sugtaa muddo dheer si aad u aragto iftiinka, sida geedka oo kale. Marka abuur la beerayo, isla markiiba miro ma dhalo. Waqti ayuu qaataa, roob ayuu maraa, qorrax ayuu maraa, dabaylo ayuu maraa, kadib ayuu noqdaa geed weyn. Adiguna sidaas oo kale ayaa tahay. Dhibaatada maanta ku haysata waxay noqon kartaa sababta aad berri u xoogaysatay. Murugada maanta aad dareemayso waxay noqon kartaa casharka noloshaada ugu weyn. Dad badan waxay arkaan guusha dadka kale, laakiin ma arkaan dhibkii ay soo mareen. Ma arkaan habeenadii ay ooyayeen. Ma arkaan waqtiyadii laga quustay. Guul kasta gadaasheeda waxaa ku qarsoon sheeko adag. Nolosha adag waxay kaloo ku bartaa qiimaha ducada. Marka aad meel walba ka quusato, waxaad baranaysaa in aad Alle u laabato. Waxaad ogaanaysaa in qalbiga degani uusan ka imaan lacag ama dad badan, balse uu ka yimaaday Alle oo lagu kalsoonaado. Waxaa jira dad maanta dhoolla caddaynaya oo shalay aad moodaysay in ay burbureen. Waxaa jira dad maanta guulaystay oo shalay cidina rumaysnayn. Sidaa darteed, ha nabcaan dhibaatadaada oo dhan. Waxaa laga yaabaa inay ku dhisaysay. Waxaa laga yaabaa inay kaa dhigaysay qof ka wanaagsan kii hore. Haddii maanta noloshu kuga adkaatay, ha quusan, ha isdhiibin. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaad dib u eegi doontaa dhibkaagii adigoo leh, wax walba way ii hagaageen. Wax walba waxay ii ahaayeen cashar. Sababtoo ah nolosha adag ma aha dhammaadka qofka. Mararka qaar waa bilowga qofka cusub. Weligaa noloshaada ha ka shallaayin. Weligaa noloshaada ha ka qoomamaynin. Weligaa ha isku arkin qof aysan rajadiisu rumoobaynin. Waxaa dhici karta haddii samirkaagu wanaagsanaado, maalin inay ahaataa maalintaada. Haddii ay dhacdo inaad noolaato, maalin ayaa waxaad la noolaan doontaa rajadii iyo mustaqbalkii quruxda badnaa iyo riyooyinkii tirada badnaa ee wanaagsanaa ee aad qalbiga ku haysatay. Taasina waa xaqiiqo.